ramadaantan waxaad ku arki doontaa goobtan ilmo in aan soo dejinayno tusaale ah 30 mawduuc oo gaar u ah anshaxa guryaheena oo aan ugu talagalnay maalin kasta inta aynu ku jirno bisha Ramadaan. Mawduucyadan ayaa ah kuwa ku saabsan anshaxa akhlaaqda ama qiyamka aynu leenahay. Waxaana ugu talagalnay in ay caruurta yaryar ka qayb qaataan soo gudbintiisa iyo soo jeedintiisaba. Anshaxa 22aad waa waxaan bixinaa waxa aan jecelnahay. Bar ilmahaaga xadiiskii rasuulka sallallahu alayhi wasallam ee ahaa midkiina ma rumaysto ilaa uu la jeclaado walaalkiis waxa uu naftiisa la jecel yahay. Tusaale ahaan, tus ilmahaaga adigoo wax aad u jeceshahay bixinaya. Ogow waxa tahay macalinka koowaad ee ilmahaagu leeyahay. Waxa aan bixinaa waxa aan jecelnahay. Iftiimi mustaqbalka ilmahaaga. Waxaad ku iftiimisaa baridda anshaxa wanaagsan ee diinteena iyo dhaqankeenaba si aad uga dhisto caqliga oo aad u koriso dadnimadiisa iyo damiirkiisaba.